Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta taariikhda ku beegan tahay kowdii bishii 12aad Dulxij 1447 ku beegan 18 bishii shanaad 2026. Ilaahay muxuu yiri bismillaahi arraxmaani arraxiim walfajr walayaali alcashr. waa 10ku ilaahay ku dhaartay. waxaa ka khayr badanaa la dhahaa culimmada ay fasiraan 10ka ugu dambeeya ee ramadaanka. marka walaalayaal hal maalin waa tagtay, maalinta labaad siis oo bilaaban rabto, dadna qaaradaha way u bilaabatay. laga faa'iidaysto waxaan ugu sii barako badan maalinta sagaalaadka carafa. aan lagu dadaalo ducada, istikfaarta, النبي لو صلي لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا كان من يقول سجالك طبعا هالمال وكرافت سجالك مال تلعيما مقرن السحية إلى وحاجة عشان مكسينا إن شاء الله. تاسوا دير قلين أنا روينا مقرن سين حسوسية فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وعروي منه هذا له لا قدب. أنت لما تلاقون حريستو أنت حنوسن إله عافية wixii muraad leh muraadkooda khayr leh ilaahay sii. aamiin aamiin. laga faa'iidaysto kan dambe. laba qodob aan uga hadlaa. qodob koowaad waxa uu dhahay Donald Trump waxaan hakiyay xabad joojintii, waxaan lahaa qorsho ka dhan ah Iran oo military ah, waana hakiyay. wuxuuna dhahay waxaan xabad joojinta hakiyay 2 maalin ama 3 maalin. waxaan iga codsadu dhahay dowladda Sacuudiga, Qatar iyo Imaaraadka inay diblomaasiyad lagu xalliyo 2 maalin ama 3 maalin in la hakiyo. kaas waxaa qodob koowaad. asoo faahfaahin waa insha Allah waa u gudo geli doonaa. qodobka labaad, iskaashiga u dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka ayaa xoogaystay. wuxuuna madaxweynaha Ruushka casuumad rasmi ah u fidiyay madaxweynaha Russia Vladimir Putin, madaxweynaha Ruushka, isagoo ka helayo casuumad sax ah Kremlin-ka meesha looga taliya aqalka looga taliya Ruushka ayaa wuxuu dhahay xiriirka noo dhexeeya Shiinaha iyo Ruushka wuxuu xoogaystay markii reer galbeedka cunaqabateyn la saareen kadib dagaalkii dhacay Ukraine, kaasoo xoogsaday ganacsiga, iskaashiga, militariga, nooc walba, kaasoo gaaray balaayiin $100 bilyan. marka waxaa walaalayaal labada qodob oo faahfaahsan inaan inla wadaago si u dhaqso badan. saacado xasaasi ah oo u dhexeeya Washington iyo Tehran, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu si meel gaar ah u hakiyay weerar military ah oo ka dhan ah Iran, isagoo sheegay inuu jirto fursad aad u wanaagsan oo lagu gaari karo heshiis ka hor Tehran inay hesho hub nuclear ah. Donald Trump ayaa sheegay in Qatar iyo Sacuudiga iyo Imaaraat inay ka codsadeen in dagaalka la joojiyo 2 maalin ama 3 maalin si fursad loo siiyo wada hadallada iyo diblomaasiyadda. halka Pentagon ay heegan geliyeen ayna sugayaan inuu shirka fashilmo, kadibna ma garanaysa ay dagaalka bilaaban rabaan. dhanka kale, Iran waxay ku eedeysay Mareykanka iskhilaaf iyo dalabyo xad dhaaf ah, iyadoo Pakistan ay weli dhexdhexaad ka wado labada dhinac. guddiga Israa'iil
benjamin netanyahu ayaa sii wada kulamo amni oo degdeg ah isagoo cabsi ka qabo dagaalka inuu dib ugu bilaamo iiraan ay u bilaawdo. indhaha adduunka waxay ku wajahan yihiin saacadaha soo socda kuwaas oo go-aan ka gaari doono xabad joojinta guud ee gobolka. qodobka labaad, iskaashiga u dhexeeya ruushka iyo shiinaha ayaa xabad midaysan oo ka dhan ah Washington, balse ka dhisan dana wadaag ah kuna dhisan dana wadaag ah. Iskaashiga shiinaha iyo ruushka wuxuu ku dhisan yahay dana wadaag ah labada dhinac. Kana wuxuu wadaagaya labada dhinac ma garanaysaa waxay ku heshiiyeen inay wax wadaagaan, ma inuu mid faa'iido mid kale lagu tiirsanaado la baabi'iyo ma aha, oona ka dhan ah danaha Mareykanka. Kremlin-ka ayaa sheegay in Vladimir Putin maanta booqasho rasmi ah ku tagayo shiinaha kadib casuumaad uu ka helay dhigiisa madaxweynaha shiinaha Xi Jinping. Labada hogaamiye ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan xoojinta iskaashi istiraatiijiyad, arrimaha caalamiga iyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo istiraatiijiga, iyadoo xiriirka Moscow iyo Beijing ay si weyn u xoogsatay tani markii reer galbeedka cunaqabatayn ay kusoo rogeen Ruushka kadib dagaalkii Ukraine. Shiinaha ayaa noqday saaxiibka ganacsiga ee ugu weyn Ruushka, iyadoo labada dal ay ganacsigooda gaareen $100 bilyan. Labada dhinac waxay sidoo kale adeegsadeen luqad midaysan oo si adag oo cambaareynaysa siyaasadda Mareykanka, iyadoo ku eedeeyeen Washington kalitalisnimo iyo cadaadis. Dhanka militariga, Shiinaha iyo Ruushka waxay kordhiyeen tababaro wadajir ah oo labada dhinac, iskaashi dhinaca hubka, horumarinta istiraatiijiyadda tiknoolajiyadda. Falanqeeyayaal hadda waxay aaminsan yihiin in xiriirka labada dhinac uu yahay mid ku saleysan dano istiraatiiji ah oo dhan ah saameynka Mareykanka, balse weli leh xad iyo xisaab gaar leh. Wuxuu leeyahay xad buu leeyahay, xadkaas ma la dhaafayo, iyo in la isla xisaabtamo. warcad ragnimo. waxaan rabay marka labada qodob inaan la soo wadaago. qodobka hore oo ma garanaysaa heshiiska u dhexeeya in la gaaro heshiis la rajeynayo haddii wax isbedelin oo la kala boodin Tehran iyo Washington, kaas ugu muhiimsanaa. kan kalena waa ku jiray asal ma garanaysaa markuu Mareykanka tagay caasimada Shiinaha oo marka Ruushka ma garanaysaa isla soo xiriireen. waxaan loo fidiyay saaxiibkiis wuxuu u fidiyay casuumaad rasmi ah oo laba man qaadanayso, wax badan la isla jeexi doono, heshiis badan lagu soo kala jeexi ma garanaysaa saxiixi doono kadib markuu Mareykanka meesha lasii nadiifin doono. marka insha Allah labas qodob waxaan rabay in la soo wadaago haddii Ilaahay yiraahdo. aan laga saa marka hore in sheega waa 10 maalmood Ilaahay ku dhaartay, maalin way naga tagtay, 9 maalin noo dhiman. walaalaha laga faa'iideysto si 10 dambe ugu faa'iideysteen ma garanaysaa ka faa'iideysta. waa waano, waa
waa in magaranaysaa in dhiirigelinaya marka waxaa labadaas qodob inaan kusoo salaamo in kusoo koobo waa in salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.